wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgaladowga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Axmed Madoobe Nunow iyo geeka magaalada Baydhabo tababaranku furi qaar kumid ah shaqaale wasaaradda koonfur galbeed agaasimayaasha guud shaqaale ku shaldaran maamulada degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya tababarkaas oo la kabaro doona maamul wanaaga way banuusu darar doona muddo usbuuc way ban tababarku qaban qaabiday wasaaradda qorsheynta iyo maalgaladowga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ujeedada kulay tababarku وبيت سيدي كورلانك قادر لها أقوانت شقالة كهر قلو دولة قبلات كونفور قلبات سوماليا أحمد مدوي نون وزير كوزارة قرشين تي مارقلدوك دولة قبلات كونفور قلبات سوماليا أوس رسمي أنفور توبارك بوسوكو حضري وريابا لك برادو دان مدوس الدرار توبارك ويبانو سوكو يبقالياش سوكو دار مينتيوكو فايدة استان مدوس الدرار وصونا الشاقين توال بدن وسوكو سايدة دون الشاقة ديو توباركان wuxuu socon doonaa muddo 6 maalmood ah kooda maanta aan bilaabeynaa ilaa 7 maalinka jimcaha waa maalin nasiino oo break aan ka qaadan doonaa sabtidu noo soo xirmaado alidmo tababarkan waxa loogu talagalay waxa waaye tababar oo dawlad wanaaga maamulitaanka iyo waxay dhahaan governance leadership and management tababar ku saabsan waaye waxyaabo badan oo ku saabsan oo idin fududeynaayo howlihiina shaqo oo ku saabsan managementiga hadii ahaan leed iyo maamul wanaag ka faa'iideysan doontiin Sigman Peak International waxay u leeyihiin aqoon iyo way aragnimo la xiriira arrimahan tababarada khaasatan governance iyo leadershipka muddana waa ka soo shaqeeyeen wadamo badan ay Soomaali ka mid tahay ayaga laakiin Kenya ay xaruntooda ugu weyn Kenya waaye waxay caawiyaan wasaaradda naga waaweyn iyo hay'adaha kale naga waaweyn oo shirkado hadii noqon lahayn ay ka caawiyaan annagana waxaan rajaynaynaa in oo laga faa'iideysan doono kaliya waxaan rabaa inaan kula dardaarmo in oo u aragtiin fursad qaali ah in oo aan ka faa'iideysateen sababtoo ah tababarada noocan hadeer adduunka waa isbedelaya qofku wuxuu rabaa soo shaqeynaayo full time inuu haddana aqoontiisa u kororsado aqoontana waa wax in u baahan in la cusboonaysiiyo mar walba haddii oo 9kii dugsi sare ka soo baxday mise 2000 jaamacad ka soo baxday wixii yaal aqoontii taalay aqoonaan ahayn hadda taal caalam marka mar walba qofka inuusan fariisanin oo waxa loo baahan yahay oo ku dadaalo soo u cusboonaysiin la aqoontiisa iyo xirfadiisa waxaan rajaynayaa haddii hami weyn uu kugu jiro oo kan ka weyn aadan ku qanacsaneen ina 30 sano 20 sano soo socdo dad aad u dhalinyaraatiin ina meelahan afadhidiin ay joogtiin waxa u baahan tihiin tababar noocan ina maadaama hadda fasal aadan fariisan karin jaamacad iyo 3 sano 4 sano 2 sano oo dib tababarada noocan way waxyaabaha aad ku kobcin kartid aqoontaada iyo xirfadaada shaqo marka hadii ilaahay idnay oo si free ah oo ay idinkoo joogurihiina ku hesheen kaliya waxa leen ka baahan yahay ina ka faa'iideysateen su'aalo far badan aad weydiisiin discussion laga dhigo aysan noqonin wax leen ku shubaay qoranaysiin oo qaadanaysiin aysan noqonin oo noqdaan waxa ka falcelin kartiin oo discussion interactive aan rabaa inuu noqdo marka waxa ka soo baxaya kaliya ina ka faa'iideysateen dadkan iyo waxay soo dejiyeen maahana su'aalo kale ka baxsan imaanay oo anfacaad idin leh waxa kala imaanay dadka la siinayo xataa isku aqoon maahan isku way aragnimo maahan idinka dhaxdiina hadan kala faa'iideysanay dhinaca kale wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo geeka haroonta wasaaradda ka dhawaay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasay mudane Isaaq Fana waxa kala rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasaaradda agaasimaha cusub oo maanta nagu soo beeray actually agaasima Isaaq oo aaminsanahay inuu tababarkan qaybna ka noqdo haddana facilitation kan idin ka caawin doono
Faisal Dhaye Hussein, Raadiyo Telefishan Koonfur Galbeed, Baydhabo.